dacwadu way noo furan tahay aaweedeysanahe dambiyada aan soo xusnay lagu soo eedeeyay ma gasha mise toodad ka qabtaa ma galin ay xireel ali mudana gudoomiye eedeysanaha maanta halkaa aan soo istaajinay waa eedeysanaha ugu khatarta badan oo soo maray shaqaalayaasha shirkadaha waa nin madaxa ah waa nin tuug ah waa nin kala jeclaan in shirkad ay kacdo iyo in ay kala kacdo mudana gudoomiye ana ma iska oranayo sidaas ee halkan waxaa ku hayaa caddeemo aad waa arki doontaan oo ku filan in ninkan oo yahay tilmaamihii dhammaan aan soo sheegnay mudana gudoomiye taariikhda markay ahayd 2024 bishii 3 25 subax sabti ah saacaduna ay ahayd 9 subaxnimo iyo 45 daqiiqo kamerada waxay qabatay eedeysanaha oo buskud ka xaday boorso oo leeyahay nin miskiin ah oo saaxiibkiisana ah ninka oo wax ka xaday waa saaxiibkiisa oo soo quraacaniday mudana gudoomiye waxaad arkaysaa haddana eedeysanaha Mr. Rooraye maalin kale asigoo shaax ka xaday xafiiska maamulaha nasiib daro ama nasiib wanaag waxay ay tahay magaranaye ee maamulaha ku soo galay eeg mudana gudoomiye xirfad oo u leeyahay xadooyda awgeeda wuxuu iska dhigay inuu shaax oo u wado maamulaha wuxuu ku dhahay oo taas waxaa caddeyn u ah daqiiqad kadib wuxuu soo laabanayaa xafiiska maamulaha kamerada qabanaysa eeg shaahi oo qaadana waa carreeya inta la doo arku waa cadaa mudana gudoomiye miskudkaan ku hor yaalo hadduu damco goortoo qaatay goortada oo cunaa garaweynaysa fadlan martida isku badnaada fadlan isku badnaada mudana gudoomiye aan warkii halkaas oo ku leeyahay ee maxkamadda waxaa ka codsanayaa in ninka eedeysanaha Mr. Rooraye la mariyo ciqaab in dambe shirkad oo ka shaqeyn dukaankiisa tabakaayada ka shaqeysta dooro mudana gudoomiye adiga iyo dadweynaha ka soo qayb galayba waxaan si naxariis leh uga codsanayaa in muwakkilkayga wajigiisa ay fiiriyaan muddo hal daqiiqo ah mudana gudoomiye wajigiisa waxa ka muuqda waa baahi waxa ka muuqda waa duruuf waxa ka muuqda waa bisaarad iyo shiidnimo shaqadiisana oo halkaa ka sii wato maxkamadda aad bay u mahadsan tahay maxamed cabdullaahi Rooraye ina Faadumo Khaliif 26 sano jir ah ku dhashay gobolka Banaadir qaasatan degmada Hodan aanan lagu lahayn wax cuno ah oo duruuf ah u geysay sida shaaxa buskudka iyo wixii halmaala maadaama ay shirkadda iyada sii weys xaqiisa shaaxa ah laakiin laga rabo magdhow alaabixii si gaarka ah ugu jiibsiibay shaqaalaha sidoo kale shirkaddu waxay xaq u leedahay maanta laga bilaabo in ay ka ceeriso Mr. Rooraye shaqada sidoo kale maxkamaddu waxay faraysaa shirkadaha Soomaaliyeed in ay ogolaadaan shaqaalaha shaaxa buskudka loo gaadaan si ay shaqadooda si wanaagsan u gataan wabillahi tawfiiq maxkamadduna way noo xiran tahay